ونرسل العطر بالرضي الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wamaalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر يا أبا ذر بكير الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا لك مسلم كو شو وقتي وحال كيجي إلى هاي أوجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول طاعدي عبادتي iyo diinta intaad haysato waliga ha ku qancin, ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqada inta ilaahay ku siiyo ku qanca. taasaa mustaxab oo la jideeyay. wa abadar azhadu ummati wa a'baduha bu nabi guri, waa ninka ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man araada an yandura ila Ciisa ibn Maryam falyandur ila Abidar bu nabi guri. ninkii doonaya nabi Ciisa inuu arko Abadar al-Ghifaari ha arka buu zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadar oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar zaada fa inna safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dar, oo safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi, Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa?
saaxibu rasuulillaahi baa tahee wuxuu yidhi abkii liqilati zaadii wa bucda safarii sahayda aan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi hada abu dar cumar radia allaahu canhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi markaasaan ku idhi liman hada alqasri gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey anigaaba carabe ma cid kalaa haa nin qurayshaa loo diyaariyey quraysh ka dhashay anigaaba qurayshe ma cid kalaa haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey anigaaba muxamede ma cid kalaa haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey hada cumar walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan hal nin keliya naar ka galaaya ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow diinta intaad haysato ha ku qancin adduunyada intaad haysato ku qanac taasaa mustaxab ah asxaabu rasuul sala allahu calayhi wasalam qarnigan qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhiradaa la weynayd asbaabta iyo ashyaadu lama weynayda camalka saalix iyo iimaankaa la weynaa makhluuqu lama weynayna ilaaha khaaliqa amarkiisaa la weynaa man lam yardaa biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayna asamaa'i wa ardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilahay yidhi xadiis alqudsi man lam yardaa biqadaa'i qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn nicmadaydana aan iigu shugriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada anigaa samaystay ha iiga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaystay baa ilaahay yidhi ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can daacati illah qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaan u shaqeeyaa ubadkaan u ordayaa iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay ku seejin النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان جنة نارتي ولا قد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد ديارسنيا نارتين هل كانوا بلقد ديارسنيا أعماشي جنة لقو قلي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت لقو قلي هل كانوا بلقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا hawadu waa cadowgeenna weeyaan afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah haadeecin naftaada shaydaankana haadeecin adduunyada ha haadeecin daacadda ilaahay inayna ku seejin adduunyada ilaahay ku jecel yahayna uu siiyaa ku jeclayna uu siiyaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin ku seexday xasiir salli buu ku seexday dhagaxdii baa markaa feedhaha ka qabatay cumar baa dul yimid oo lilmeeyey uu ku kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa cumar buu ka yidhi maxaa kaa oohinaya wuxuu yidhi yaa rasuula allah waxaa iga oohinayay buuhi adigoo rasuulka ilaahaya ayaa dhagaxdu feedhaha kaa qabanaysaa markaasuu nebigu ku yidhi yaa cumar maad iga shikisan tahay aniga may kallaa kaama shikisaniye waxaa ii cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badanna inay dhagaxdu feedhaha kaa qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan jawaabta dhegayso walaalkayga muslimkow wuxuu yidhi yaa cumar amaa tardaa an takuuna lana alaakhira walahum addunya yaa cumarow maad raalli ku ahayn inay raaxada adduunyada iyo ku 60 sano ay qaataan inakuna raaxada aakhira aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa tadamba ha kula weynaato tanna ka tag laguma leh
تدنبه هدي كل وينات تنادويد ويمعنان هاد بقفك انت العقد وزيادة الراحة ومزيادة وقو هاد بقفك انت الدويد وزيادة والولي والبهار كاكو زيادة هاد بقفك انت إيمانك الدين تي قرب من الله يود وادنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ما دا عمل وناكسن شنطا وقتي والجمع كنت كتايا كمد عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهان نغضب إلى هيدي لبي يديك متكو دوني بهان نغضب وهو مؤمن حاله قفك مؤمن هو إيمان ليه فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلن لقلنا لا توبوا وناكسن مفسرين توحيد هذا نلش وناكسن وصدح ويام قلبك وكود دقا أرزاقته كوكو في اللاتا يددك وكو جعلادا صدح لا وحي لهي كوب لنق على إنه كوبحن إيماني عمل صالح ديدتك لقاه له إيماني عمل صالح marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso ma aha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همه سكدق أبو الرسول كده الدوية قبا وكفكرة آخرة رنتها إن داقة كسارة إسكاي اللوبة لبدا إن لودين تود حيسا فقرق الله سارة أرميه سنة برية قلبات بار رب العزة كوكلا الشيرية الدوية ما بها لإنتي الله وقدر مويانه ومن كانت الآخرة همه نك همه سكدق أبو الرسول كده آخرة جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه سودنا إلهي بس كوكو سودويا واتته الدنيا وهي الراغمة الدوية وحي أتما دا يدو سند الليسان وهو سعتي تما دابو رسول كوري هكسي جسن طاعد إلهي والله كمسلم كو دين تنوحو إلهي نوسيي سيادون كان يا آخران نقول لي بانو منافع الدين منفعات الدين تو آخرة كلية كمان بالعبانتين الدويدنا دين تلقوا درجيا الدويدنا دين تعز لقوها ليا الدون كنا دين الراحة لقوها ليا الدويدنا دين تأمني إن بتقلي لقوها ليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان أنت ودبل طاعد إلى واحد كنا في سواهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلada intood shaqo ka weydo hadda samada shaqo lagu sheego u doonato shaqo kabasho biyo ku qorin ma soo qaadaysid aqsir anaaka fa inna ar-rizqa munqasimun yati ilayka walau fi jabhati al-usdi taabkaaga yaree haysdalin xoogaaga iyo aqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu haday libaax foodiisa taalo ayada ku imanayse la ta'jalanna fa inna ar-rizqa laysa bil ajali hadagdagin arsaaqada xoogiga qafqaf lagu meele rizqu maktuban bil lawhi ma'a al ajali arsaaqadaadi iyo cimrigaaga waxay ku qoran yihiin lawh mahfuudka ma dhimanaysid illa arsaaqadaada dhameysatid ma hayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجلي هذا الصبر لهين رزق يسقى نصدون لها لكن بني آدم كان أسكت دق مر والبا وحول بدق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستو مسلم أيا لقربا إنه إيمانك سيل الصدو
inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamkao dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamkao dhan baa ilaahay ugu talagale risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidina Umar radiyallahu anhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiina ku soo maray kalimaad diintii nabi Muuse kamida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nabiga kaleey salaatu wassalaam Abdullah ibn Thabit iyo nabiga wada fadhiyay buu yimiday ala araduha alayka ya rasuulullah buu ya rasuulullah ma ku bandhiga nin reer bani quraydo saaxiibanahay baan kalimaad tawraada ka soo qoray fataghayyara wajhu an-nabiy alayhi salatu wassalam midabkii nabiga isbedelay bal fiirso midabkii baa isbedelay midabkii rasuulka Abdullah baa yidhi ya Umar thakilatka ummuk wayda qablante nabiga wajigiisa miyaanan carada ka dareemin Umar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radina billahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raali baan ku noqonay wa bil islaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raali baan ku nahay dhaqan ahaan raali baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bi muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasuulan wa nabiyya nabi muhammad risaaladiisa iyo nabinimadiisana waan ku qanacnay buu raali baan ku nahay fasurra nabigu uu farxay manbarkii buu fuulay wuxuu yidhi nabigu alayhi salaatu wassalaam ismac ya akhi dhagayso dad aan waxba ahayn oo la isku ekeysiyo dadkeenu isku ekeysiyaan iska daaye undur hadalka nabigu ku hadlay alayhi salaatu wassalaam law asbaha Musa fiikum thumma tabactumuhu wa taraktumuni la dalaltum budi hadii maanta nabi Musa uu nidhex iman lahaa anoo in dhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yidhi antum hadhi min al-umam wa ana hadhukum min an-nabiyyin nasiib ayaad ii tihiin buu ummadihii aan ka helay nasiib ayaan inni ahay buu nabiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nabi Muuse maanta uu iman lahaa uu shariicadiisii tawraad la iman lahaa ood aniga iga tagi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yidhi antum hadhi min al-umam ummadii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana galitaanka ugu horeysa ummadda jannada inta badan dagaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nabigu nasiibkayga ay kii siiyey maadaama aniguna ahay nabiyada ugu dambeeyay imaamkii anbiyada maadaama nahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wassalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wassalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nabigu yidhi xurrimatil jannatu cala al-anbiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu gali maayaan waa laga xarimay ilaa anu aan ka gala maahine wa xurrimatil jannatu cala al-umam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada gali maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nabigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buuhan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad arakin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala Abdullah ibn Mas'ud baa yidhi nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu janna marka 3 loo qaybiyo qaybna noqotaan ma ku tihiin raali baan haydadeen markaasuu nabigu yidhi walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajaweynahay ka yaabuuray baan ku dhaartay jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajaweynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu nagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay kaliya un baa laga rabay kaliya bas
ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan. amaa ummaddan laba shay baa laga rabaa, laba shay. ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa, ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa, aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa, khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa. maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum. mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey, mar keliya. markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro, ummadin iga dambaysaana ma jirte. alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba. kiina maanta ila jooga i maqlayow, kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. balliquu canii adduu canii raximakum allah. allah inii naxariistee ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya. allaahuma ansur man nasara diina muxamed. ilaahow ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi. nadara allahu imra'an samica maqaalatii. maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ummaddan waa ummad ilaahay doortay. sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday, gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday, wax kale ma aha, waa tarku dacwa. dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday. idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum adil laa yanzicu xataa tarjicu ilaa diinikum. markaad xoolodhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan, tijaaradda aad u kacdaan, shaqadii diinta iyo dadaalkii halgagii diinta aad ka tagtaan, ilaahay dulli buu nuhuwinayaa. dulli niga saari maayo, dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine. ilaa diinikum baa la yidhi, ilaa diinikum. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha, soonka maaha, xashka maaha. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan. waa in la helo juhdu dacwa. mar alli markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa. ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya. markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa, qofka ayuu soo galaa. iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa. markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa, salaadiisii iyo qofkiibuu kala dhex maraa, wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba. salaadu waa farad, eedaanku waa sunne. shaydaanku muxuu salaada uga baxsan laayahay oo sunnaha uga baxsanaya? lianna aadaanku waa dacwad, salaaduna waa cibaado weeyaan. ifham almasala walaalkayga muslimka u faham. ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan. cumar ma mara buu nebigu yihi tog, shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa, lianna cumar saaxibulxaq buu ahaa. saaxibulxaq. shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade, shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka. allahuma rabba hadihi dacwati taama, lianna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan. sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno, falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu. dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa? fasaadka dhacaya, cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya u badbaadaya. imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag, soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag. malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh. markaasuu yaa rabbi yidhi qaryadan aad igu tiri soo halaag, addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii. ilaahay wuxuu yidhi fabda' bihi, cadaabka xaggiisa ka bilaab. lam yatacamar wajhu saacatan fiya. dadka aniga caasinaya keyrkii caabudaya ee macsiyada dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoomin oo kama murugoone, cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi. alaa wasaluu wasaluu wasalimuu calaa man umirtum bisalaati calayh. faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala alnabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima. allahuma salli cala sayidina muxamedi cabdika warasulika الnabiyi اlumiy wcala aalihi muxamedi waaswaajihi waasxaabihi waahla beytihi الطaahiriina الطayibiin wcala الtaabiciina wataabiciihim bixsaani ila ywm اddiin wcana macahum bicafwika ya akram alakramiin. allahuma اغfir lilmuslimiina wاlmuslimaat wاlmuuminiina wاlmuuminaat alaxyaaءi minhm wاlamwaat biraxmatika ya arxam الraaximiin. allahuma اjcal jamcana hada jamca marxuuma wتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك
يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey
nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan, nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa, nicmadda weynina dad gaara ayay khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad, ilaahay isagayna jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagayna jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar, intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay, horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahina waad ku socotaa. ilaahay bayna keena adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtiibuu u bishaareeyo ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri, bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat, arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oon sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi. marka nicmat linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma bal ka kale aan muslimka haynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tagtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhexaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimid calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi, ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan nigi buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga, ma maalin keliyuu kuu yimidaad cunto siini weydee
70 sano sanabka uu samaystay caabudaa oo waliba ku arsaaqa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay, arsaaqadu waa nicmad weeyaan, nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmada maqalka dadkoo dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan, akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliila maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal ini yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysaa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey, gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa adu waantowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo hani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cizo iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa u waantowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbahayna u yaaca, xagga makhluuqa ha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa baad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto, meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto, xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadkao dhan buu adiga kuu sakhiray, xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato, caanahaason kasoo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaa kasoo saarnaa baa la yidhi, caana cad. taskhiir, xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada oon wax kalaba ka shaqaynayn, wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mika'iil calayhi salaam iyo malakul mowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mika'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay. haddana malakul mowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd al arwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay inoo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. innii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'ii baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudayaa. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudayaa, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya,
ghayrkayna uu isku hadlaynaya ghayrkayna uu ictimaadaya arzuqu wa yushkaru siwaayi aniga ayaa arsaaqa baa ilaahay ghayrkayna waa ku mahadinaya arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi khayrkayga maalin walba uu soo degaya addoommahayga sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilaahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadanka ka soo fulaysay ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal adigu is xisaabi khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilaahay yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jala wacala uu cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaabaa ilaahay yidhi welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaan waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culamada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jebiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood i caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wa hum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena oo iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawoodiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii
markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya kheyrkayna caabudayay kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi mati tacisa cabdu dinaari wadirham buu nebigu yidhi addoonka diinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeenni iyo dalkeenni baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadan iska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisu hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah jawaamicu lxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimatillah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanayaa aawee kuwii arsaaqadayda cunayay kheyrkayna caabudayay ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay aawey buu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune marka qofku hadduu macsiyadda ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicaziizin du intiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhan waad caabuday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenay in ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaba mahaba
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي إبراهيم عليه السلام يلاشي سوحو كيري وبدكيغيو إلهي الدين تاسو إني دورتي يين أجاشي يجردو نيمن إلا إنكو دين تاي حرقا هايستما هنا هداي نيتي ما دا أجاشو إنكو حرقا هايستنا واللي بانتين هداي أجاشو إنيتي ما دا إنكو حرقا هايستنا خسارة waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn. Khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo. dalbay dhibaato ka dhacday waa laga soo baxay. dadka badankoodu way ka baxeen. quruumo kale reer baadiya dalkii bas ka qabsaday. dadkii wax yaqaaneen mutacallimiintii waa ka soo baxeen. meeshana waa kala sigeer cascasiye baawr la iska wada wato. laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxaya ma jirto meel loo soconayo. haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn. qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin يود الذين كفروا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا إلهي بالله فكيف لا تتقون ميانا عبسنين با إلهي ليه سيندو عبسنين هذا خالقين إنكرتان ونعمد النسياء هذا إنكرتان وتهوديني شهوات كنا أذرعدان ميانا كعبسنين وقيران مالين ilmaha yar markuu banka qiyaamo la joojiyo timihiisa isla markiiba cadaan isku bedeli doonaan. yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh waa maalin wajiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wajiyadu ay madoobaanayaan. yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan. maanta waa la isku yaacayaa adduunyada waa la isku yaacayaa. hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan. nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso. hooyadaadii macaaneyd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee sii hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay. yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. bale yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn. qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey. xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi. waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan. qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi. qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa i kala caddayn bay tidhi. jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid ahaa ii caddayn bay tidhi. fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa ii caddayn bay tidhi. waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow. dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay. aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada oo ifka u soo baxday. maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit. jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso. wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo
waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shiita fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad jeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku noolahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonaya sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekeey ma oydide qabriga maxaad loo oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaa buu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilahaydhi waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur waa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku ooyaya waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badyaabaa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas dadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku galay nuur aliimaan
iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigii bay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebigi baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed allah agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysoo dhan beenee waxa samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhah musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة مهلس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يقع عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يقع عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يقع عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنه laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakaw fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagta adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaye baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday
caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ini aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ini aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele looguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhammaystirin daar baa jirta lagu dhammaystiray waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rashawar oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waa raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo horradeydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa idaa dakhala ahlu ljannati aljanna yunaadii munaadin bianna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada tasixuu laa tasqamuu abada tancamuu laa tab'asuu abada tashubuu laa tahramuu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nabigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiyow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanaya indhihiisii baa looga dhigaya jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa 10 waa saaxada arlada weeyaan ama waxa jannada yaala adduunyada ma yaaliin adduunyada maxaa yaala markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiie maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiyey soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkao dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buuhi ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buuhi 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra faqad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buuhi cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqada oo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale u soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 700 sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu
xuralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanayaan muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku bedelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanazacnaa ma fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid a alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddeed hole nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat aljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin layidhaah baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaah dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaah dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaah abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abubakar keliya ka geli maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oo ay soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye
wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuuralcayntu haweenka muuminaadku xuuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday. kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday, lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan. cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeye, xaqeygii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye, maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay, maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, islaam baad tahay, muuminad baad tahay, waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii mar. maryam binta cimraan ku dayo, aasiya bintu masaaxim ku dayo, faaduma binta muxamed ku dayo, khadiija bintu khuwaylad ku dayo. dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay. sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam, haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi. 4taasina waa maxay? waa maryam, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan. waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd, halka beydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay, adduunyadana way ka saay qaadatay. waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija. qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd. diinta islaamku meel sarayni dhigtay. raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi, raabicay haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday? nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaan la yidhi. waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhalla bay tidhi. subxaan allah, caqligu waa cajiib. caqliga allah inoo hagaajiyo. boqoradana annaka unbaa dhalla, imaamyadana annaka unbaa dhalla, nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi. allah ina fahamsiiyo. khayrulkalaami maa qalla wadalla. ilaahay diintaa buuna siiye islaamnimada. diintaa inaan adkaysano oo nicmada u aragno, nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonaya walaalayaal. oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin. ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi, meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab. badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal. hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan, iyakuna ay badbaadayaan, usradooda iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan. muuminka dhabta ma badilmay, waxbuu badilaa. lama saameeyo, waxbuu saameeyaa. dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatu lamawiya. ardul islaam bay ka tegeen, indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislam bay ku tijaaraysanayeen. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina. masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay. muuminku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimat illah, ixyaa addiin fi lcaalam, nashr nicma. muuminku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado, caalamka gaadhsiiyo, inuu nicmadan ummadda ugu yeedho, inuu diintan caalamka uu meel walba u maro. hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto, uu u safro, uu dhaqaalo u bixiyo, u dhaxo, u dhoofo, ma badilmaya, isagaa wax badilaya. lama saamaynaya, isagaa wax saamaynaya. ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay? ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna. rag iyo dumar, ummaddan
wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay saddex shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa saddexdaas zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa saddexdaas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaanu noqonayaa lianna alarda intahat leanna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu ahaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuu ahaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuu ahaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa farans buu ku aasan yahay bilaal ree makuu ahaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconna iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeenni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadkii yimide dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidkaa ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib yaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagana calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahee bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina aladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libax ku noqday kayntiisuu libax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegey dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrkaan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya
haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka cidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culimmada iyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culimmada masaajidda faham walaal famarka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco le jamaacaduna bari weyna la joogaana soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaha ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn leedihin isku noqda in sha allahu tacala waan ila joogna allahna khayrkana waafajiyo wa sala allahu calaa sayidina muxamed